السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأيد سلامة قيارتك وحيران يوتيوب channel كنا لذا لايف ستايل meel buu dunida ka joogtaan waxaad i rajeynaa bashbash barwaaqeyn inaa qabtiin dhammaantiinba sida anigu caafimaad qabo idinku soo laabtay ayaa idinkana idin rajeynaa inaa caafimaad qabtaan maasha Allah dhammaantiin waa mahadsantiin sida quruxda badan mar walba isugu duceynayna aad idinka xitaa commentida isugu duceynaysiin oo qofkiina kala duco soo codsado aad u duceynaysaan aad idinkaga mahadcelinaya maasha Allah labadan beri waxaa ku dhahay sin xanuun horta abaayin badan oo ila qabo oo ila soo xiriiradana 8 week ahay sintan way xanuuntaa maxaa qaldan markaas ayaga toodas oo la yaabana ana cirka ila aada ku dhahay hadda muddo maanta 4 tahaybo aniga sinta zaid ii xanuunaysaa waliba kor ilaa iyo meesha hoose lugta faraha way iskala ka xanuunaysaa oo ma ku seexan karo dhinacaas socodkii uu igu adag yahay sidoo kale jiifkii faraha badnaa uu igu adag yahay haddaan cabaar fadhiyo oo ina istaaga aadamco oo i kala dhacaysaa soo alxamdulillah wax kaloo aan dhihi karna ma lahan ilmihii hore waxay igu bilaaban jirtay like 7 bilood ada 6 bilood way igu bilaaban jirtay laakiin sida rasmiga oo xanuunkii la yaqaan oo zaidka ah wuxuu igu bilaaban jiray markaan maraayo 7 bilood laakiin hadda anoo 7 biloodna muddo iiga dhiman tahay aba lasku bilaabay ilaahay hanoo dambi dhaafo ilaahay dambi dhaaf hanooga dhigo wax kala aadheena ma lahan alxamdulillah ilaahana siiyey inta haysanin ilaahay ha siiyo abaawooyinka commentiga kusoo qoraayo oo dhahayo family balena isticmaalay weli wax oo uur ma yeelanin qaar ku dhahay 2 sano laga joogaa qaar ku dhahay 5 sano ka soo wareegatay إذا كانوا وحدي كعسنا أبايك دمان family blank استعمالي إن إلى سو حريرتين إن شاء الله حل كل ما أنت قف هادو أذي وحي قف كل ورالك أذي كله داو ونقضي وحلاقي قف كاس كلتن إنه أسيجنا عاوية أو family blank حقي سأه أو استعمالي أو بربلام كهستو يعني هدي أذي جنا إيكو عاوين كرتورت واحد والبو حق إلى حلاقي ما أنت وحي أني عاوي إني أذيكو عاوين وحي أذيكو عاوين إني أني عاوين سو wax walba wax xaq rabbi ka qoran mar rabbi ilaahay waxa ka rajeynayna dhinaca wanaaga iyo dhinaca khayrka ku jiro inuu ilaahayna waafajiyo laakiin waxa idin leeyahay ila soo xariira insha Allah si fi sabilillah idinku caawinaya idinka gadanaysiin hadii meesha joogtid lagu gadin waa ka caawinaya oo waa lagu soo gadaya insha Allah أنا لكن إذا كعاونا مجيء وحتركه ذي قابل استعماله يصير تهاي إن شاء الله. أبايك لا جرتي وأيضا إيجا حسيت إذا هذا أباي هذا فيديو سوسمين يصير أو قصي وحيلا أورك كسو هذا وحيل هذا وحليه أور وسيدي أسبوعه وحليه تري أور سيدي أسبوعه هذاني كادي ذي وحن كو أركاي تري ديك يرا صورة عيد هذا ديجاس نقاطرته waxay dhaheen tiri wax oo kii malahan wax oo problem ma qabtida ay dhaheen tiri laakiin abaay hadii ay jiraan wax oo yaani ay caadi tahay oo dumar ila qaba inay jiraan waa laga yaabaa oo ay comment ku soo qori karaan oo wax iga caawin karo ay jiri karaan ii weydii abaayo muuqaal ka soo hadlaysid ku soo dar waa intaas oo qof qabo mise qof isku arkay uu ii soo sheekay tiri laba ciyaal inay dhahdaan jeclahay hadaan iloweyna ma aqaan laba ciyaal inay dhahday inay hal canug idhaahdo ma sheekay laakiin waxay tiri hore waa u soo dhalay ilmahaas horena waa lagu arkay tiri kaadida dhiig oo dhiig way soo raacda dhiig yaro go'go xarig oo soo raacay tiri iyo uurkan hada aan leeyahay uu soo raac oo asna uu soo raacay tiri marka qof ila qaba haduu jiro waxay dhahdeen abaayo noo weydii oo يعني ماشي كسر شيء وأنت أي كان كومنتي نوغو ريبان أو دهاني تري أنا جنا واقبا يعني جسدنا أهي دمانتي أنا ناسكود دعينو أبايو إنك دمان وورك لهن إله أوذ فذيو إلهي هلا جرجيو يعني وح سهلا ما أهان إنا سجال بلود عنك سوسي ديد ينقف بني آدم جركا على جبيرو وح سهلا ما أهان الحمد لله تاسن إله نو دوري إله دلقات كذي علينا هاي ما أنت مركا أورك لنا حقوه حنونكي وحي
waa dhibsanayna laakiin markaan saas u dhalno wixii xanuunkii 9 bilood ahaa dhan waa ilooweynaa alxamdulillah taasna waa wax xag rabaani ah oo naxariis uu ilaahay nagu beera waaye ilaaha mahad shukr iska leh alxamdulillah inta haysanin ilaaha siiyo inta haysatana ilaahay awlaad baari ha uga dhigo kaliya lama dhaho ilaaha awlaad isii waxaa laga yaabaa ilaaha awlaad isiidas ina aadhiis bis in awlaad si kale ilaaha uu ku siiyo marwab waxaa fiican ina ilaaha ka barido aad ilaaha awlaad oo saalix isii ilaaha awlaad baari oo caafimaad qabtana isii maanta meeqa awlaad haysato laakiin haddana ku dhiban isbitaalkan la aad wadan la aad ku dhiban soo marwab ilaahay waxaa fiican inaan ka barino awlaad caafimaad qabto oo saalix ah oo baariyaal ah oo anakan hadhow dhibka hadda aan u mareeno kuwa aan hadhow ku nasano inuu ilaahay nooga dhigo darajarta aan fadhina ila yaabinaya guriga maanta jimca waa soo maaha waxaa la ka karinayaa anigan waxaas wuu idhiba soo hadduu isoo shiiro ama urki isoo gaaro ma cuni kari qofba si waa qofba wiliciisa waa si dad waxaa jiro hadday kusoo uraan xitaa caadi iska cunaayo ama ayaga xitaa karsan karo qofka hortaas jikada intuu kala karsan karo maasha allah hambaliyaa leeyahay laakiin qofkii ani camal markuu sas uur u qaadaba qof haraasada lagu fiican yahay ani dadka waxaa ahay uur markaas sas u yeeshto aan cuntada karsan karin hada shaaha ugu yar maanta jikadaas ani u galo waa kari karaa oo cuntada seeta waa kaaga soo tuuraa sankeyba ii xirnaado laakiin ani ma cuni karin xitaa haddii cunto banaanka la iiga keeno ma cuni kari maanta dhan waa lablaboona waa qasma dhibkaasaa qabaa soo sas darteed markaas sas uur u yeeshto jika dhanba waa liska ka ilaaliyaa waxaa la bax banaankaas iska aad xagga fadhiiso alxamdulillah mar walbo ilaah nooma waa qof walaaloona caawiyo ilaah mahad shukr iskale goor walaashii ila joogto oo ibtisaami intisaar iyo jiko wixii dhahaa iga qabatay iidani markeeda xilligeeda marka la gaaro inuu ilaahay oo maxaa la u fududeeyo walaa aysa ku dhiftoonin amar walbo ugu ducee sideed camal inaysan noqonin ani waayo dadka qaar cuntada way karsan karaan jikadooda way geli karaan hab iskala labadaan laakiin aniga hadaa kariyo ma cuni kari haddii isoo shiirto sidoo kale dhibkaasaa qaba ma cuni kari soo markii wax la karinayo wax la shiilaayo banaankaas soo aada maalmaha kalena halka habeenaa dabka hilib la saaraa hilib adduunka uu soo necbahaybo ma cuno hadduu isoo shiiran waa ka basii daran maanta dhan dadka waxaan leeyahay cunakii chicken ha karsadaan anin wax cagaar spinach waxyaalahaas la iska cunaa alxamdulillah waa laga baxayaa wax oo iska kooban waaye kulli adidika qof waxaa jiro wili 3 bilood ku eg dad 4 bilood ku eg ani 6 bil waa soo xiraaya ku dhahay 6 bil markaa xiro ani xoogo dad ku soo darsamaa alxamdulillah marwab alxamdulillah ina dhahna leewaay wax kala sameyn karna malahan kaliya alxamdulillah dheena dadka walaalaha ahaysanina mar walba waxa idinku soo celcelina ina comment ugu soo duceysaan inuu ilaahay awlaad saalix siiyo awlaad baariyaal u siiyo faanteen marka insha Allah sidoo kale waxa idin leeyahay avocado oil hamuugaanina hadaba ku mahadsantihiin sida quruxda badan aad igu garab taagan tihiin oo aad feedback qurux badan aad iga soo bixinaysaan aad igu soo duceynaysaan waxaa laga yaabaa ducadiina oo mar walba ay dhisi ladan gacantaada Ilaahay ku barakeeyo ladan ganacsigaaga Ilaahay ku barakeeyo intaas ay dhiheysaan inuu Ilaahay waxaa laga yaabaa qofkiina kamid inuu Ilaahay ducadiisa ii aqbalo oo ay samada furantaha laga yaabaa oo saas anigana alxamdulillah wax walba igu kay hagaagaan noo mahadsantihiin waxaa fiican adduunka qof markuu shayga ka gato lacagti uu ku qasaa yani lacagti uu ku soo diraa laabtaada uu gato mar walba waxaa qurux badan inuu wax ka faa'iido uusan lacagtiisa ku qasaarin mar walba aniga gabdhaha markii feedback isoo diraan oo dhahaan ladan maasha Allah baa mahadsan tahay saliidaada waa ka faa'iiday markay dhan haye lacagtaada ama ka qasaartay maya haye waa mahadsan tahay asxaabtaada la sheer garay intaas qofku walaa isdhaafsana waayo maanta aniga ma jeceli wax aan gatay oo aan qof ka gatay oo lacag geliyay ina wixii ii shaqeyn waayaan ama aan ku qasaar ani ahaanba ma jeceli darba Allah ka dhigo wax la marsad iska badaa darba Allah ka dhigo hada shay online ka gato hadana aan ku qasaaro ma jeceli oo niideedu kuma faraxsanaanis soo darteed qof walba waxa ka soo qaadaa sida adiga aad tahay oo kale hadii maanta uu kareen ka gato oo kareenkii uu dhaho heblaay kareenkeeda yaa marsaday wajiga nabar uu iga soo bixiyay wajiga saan uu iga yeelay jirkayga saan uu yeelay
haduu ku dhahay faa'iido ma laha. Laakiin hadii lagu dhahay qofka markuu ka gato 4 days 3 days markuu ka maqan yahay uu ku soo dhaho abaayo waa mahadsan tahay, wajigu ii kubcay, madmadowga uu iga baxay, haarti uu iga baxday, abaayo waa mahadsan tahay. qofka markuu ku soo dhahay adigana dhiirigelina ka sii qaadaysa oo wixii waa sii wadaysa oo kama joogsanaysid. haddana waxa qorsheey ku sii jiro insha Allah sinta xogooda ii roonaato oo aan socon karo. waxa qorsheey ku jira abaayooyinka cayilan oo cajarada anaga dumar waana isdareemi karnaa marka soconayso oo kala soo isku xoqayaan meesha madmadowga ka galo oo jirkaaga ka kala duwan alaaba kaal iska arag u soo wada haduu Ilaahay ka raali noqdo insha Allah oo ka ka qaaday madowgaas ku koray. marka idinkana ducada igu kaba qofka markuu caafimaadkiisa taam yahay oo taftaf noqdo oo wax walba sameyn kara. soo idinka waxa idinka codsanaa dhanka ducada inay igu soo kaabtaan mar walba. waana mahadsantihiin sida quruxda badan mar walba ii kala taagantiin ii dhiirigelinaysiin aad idinkaga mahadcelinaya. muuqaalkana waxa ka codsanaa inaad like saartid. like waxay iga caawinaysaa inuu soo noqdo YouTube-ka xaqiisa oo dad badan ay arkaan. muhiimad ma ahan in dad badan ay daawadaan, laakiin muhiimad waxa ay in dadkii wax iga gato inay wax iga faa'iidaan khalaas intaas waa muhiimada. muhiimad ma aha in oo views badan oo meesha ka imaado, laakiin waxa muhiim inay kasam ka imaadaan. hadana kasamka ka imaado wax ka faa'iido intaas waa muhiim. qasab ma aha inay 100,000 iyo 50,000 ay qof ku daawato, laakiin waxa muhiim 100 qof oo caadi aday ku daawato inay wax ka faa'iidi karaan. soo mar walba waxa ku dadaashaa inaad ahaan kartid qof wax laga faa'iido, inaad tahay qof wixiisa dadka cajabiyaan, qof wixiisa markuu qofka gato soo amaano qof kale u sii keeno. intaas waa muhiimada. assalaamu calaykum ayaan leeyahay. soo dhawaada dhamaantiin.